iyadoo ay foodan nagu soo hayso maalinta Ciidul Fitriga ayaa waxa suuqyada waaweyn ee xaafadda Islii gaar ahaan kuwa lagu iibiyo dharka maamulka waxa laga dareemayaa mashquul zaida qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa TV-ga Universal uga warbixiyay sida loogu diyaar garoobayo maalinta Ciidul Fitriga. waxa waayo iidaanu aad u fiican tahay dadku wax bay gadanayaan hada alxamdulillah Soomaalidu toogan si fiican ay u iidayaan insha Allah waxa waayo dadku ilmay wuxuu iibsanayaan ayaga wuxuu iibsanaya hada dadku si fiican ay u iidayaan si fiican ma sha Allah aad iyo aad loogu diyaar garooba farxadda ciida ma sha Allah suuqa dharka waana laga gadanaa wax kasta oo ku saabsan ciida oo dhan farxadda ciida ku saabsan waa loo diyaar garooba wala hada wax farqi saas u dhaxay mala farxadda ciida waa markasta waa farxadda ciida ilmaha way faraxsan yihiin dadka dhan way faraxsan yihiin ma sha Allah anaga dharka waa gadanaynaa ilmahana waana looga gadan ma sha Allah waan faraxsanahay ciida aad baan u soo dhaweynaynaa soonkana ilaahay waxaan ka baryaynaa kan kala nabad ilaahay inuu nagu gaarsiiyo ciid mubarak dhammaan ummadda islaamka wada salaamaya ciidu aad bay biisu tahay aad baa mashquul loo yahay dadku aad bay u faraxsan yihiin dumar iyo dhalinyaro ciyaal odayaal dadku dhan waa wada iidayaan ciidul fitri baa loo diyaar garoobayaa aad baan Soomaalidu u faraxsan tahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si maxaa la yiraahdaa fiican aan u iidno dadkuna aad bay dharka u iibsanayaan dadka businesskuna aad bay u faraxsan yihiin dadka ma sha Allah ciidaanayta waxa waaye waa ciid oo wali hore loo arag dadka zaid dharka u gadanayaan dhar kala duwan loo keenay oo design fiican loo keenay marka dadka aad iyo aad ugu diyaar galoobayaan ciida marka anagana ku faraxsanahay in dharka aad looga dhameesto ciidan Sida Cabdi Tahliil telefishinka caalamiga Universal magaalada Nairobi.